مال المدوي مزيبا عليا لا 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 أورك حبطت هذا معنا هذا صعب ما قاعد وصاروا أمريكا أنا معنا سكتك مقالة أبينا وقت تشانسية هدي أفرتن جرتي أو سيدنا الحين هدي أيها يقرقرنا يساعد هدي من ما أنت الصعر وساعد هدي لما بقولوا كيلا هيدي هدي لما تكيلا هيد بقى وحدة الحلا يقابل رجع الصوماليات امتحان كاس أصوب حي بلو إنه كود ضيطي بلو إنه كود بجريسي بلو إنه أول بلدتنا وقستين هيك أي ما أنت ومد الصوماليات جارها رجع وحيوتها هاي مال المذوبة وتها هاي أفرت بين الجهة وحدا وعيالا أنت عسبتال هذا اللي جاي كوا رعوه جوان كوا دبر كهوس ودعي كوا فاره يسمى بدي يسكت دجاجنا النقص كقاعد لا ما أنت داو على شيء يو أفر 8 أكتوبر وحي مقدشة كدعي قرحي حماه يقصوا ونغنيا وحوي وحوي waxaan ilaahay uga bariyaa inta dhaawaca oo dhaawacooda fudud yahay oo guriyaha jiifa in ilaahay waxa weeye uu u boogadhayo inta dhaqaatiirtu la tacaalaysana daawooyinka la siinayo in ilaahay cilaaj ugu soo dhiibo oo ku bixiyo baa rajaynayaa waxa dhacday maanta maalin madoway masiiba dhacdayo orka waxa dhacay nin baa hadda koor waxa laga sheegay anigoo aabahay la liita baabihii yimi annagoo deexdal nuurshe iyo xaajiyadiisa qaadila oo waxa weeye la yaaban oo xujo ay nagu noqdeen baa waxa yimi dayax gabadhiisa waa u heesi jiray Facebook-ga uu soo dhigdhigi jiray maslaxyadaas hadba wuxuu u tuuri jiray mid gabadhiiba intuu saac u qabtay dhabarka saartay oo saac u la wareegay markaasaa gabdhii Soomaaliyeed ba horta ila arko waa kan hadii kale ay ahayn anagii xabadaydi sanada la aadanay baa 4 iyo 3 weysan la ma fahant xabadada macna hada saaq ma qaad وصاروا أمريكا أنا معنا سكتك مقالة أبينا وقت تشانسية I love you baby I love you too أدون كلامك وجهه والله شيء دي بقى ولا كمان مرن muuqaalkaas markii uu TikTok soo dhigay ninka la leeyahay qays la leeyahay iyo gabadha Seenab Jijo markay TikTok soo dhigeen hablihii Soomaaliyeed fudeed ba ku taqaanin waa la wada kaceen waxay yiraahdeen gabar walba waxay leedahay xujo ka dhigtay ninoo iqaad war gabdha Soomaaliyeed yaa qaadi kara wala socotaan yaa qaadi kara gabdha Soomaaliyeed ninkaasi de wuxuu cunay anoo garan meeno gabadhaasina malaha markeedii horeeto bay qof jinyar u dhalatay ninkaasina waa u jeedaan tulud geela ku maqan waxa isiri waxa way cambuul ku quraacda waa u maleynaya waxa weeye gabdhii Soomaaliyeed oo fudeedkeeda ogeydeen haday 40 jirtay oo 8 dhalahayd haday ayaya gurguranaysa ahayd haday mid maanta la soo aroosay ahayd haday 200 kiilo ahayd iyo haday 20 kiilo ahaydba wixii tir hal ay qaado ragii Soomaaliyeed imtixaankaas oo soo baxay maanta inta nin gabar qaaday oo araxda duntay tira male cisbitaaladii waa buuxaan guri Soomaaliyeed oo maanta aan laga taahayn oo nin dhabarka aanu hayn oo ku hayn lama sheegin xaaladaas maanta ragii xaaladaas maraya qays waxaan leenahay hadii ilaahay adiga uu ku dhaliyay nin laba lafooda hadii ilaahay adiga kugu soo beegay gabar lafa yar u dhalatay oo ku qaadmi karaysa warda dumarka Soomaaliyeed si u badan yihiin waa la socotaan ragga Soomaaliyeedna waa feera yare bal luuhi shiina culay oo ogeedeen majihi oo la yiri qaad gabar qaad la yiri maanta taydii baysan noqon waxa weeye dhabariguma noola taydii baysan noqon taydii wadkaygan maanta gelin joogi karo maanta ma jiifi karo wayka belo ku qaaday wixii ma guriga ku haysto ragii Soomaaliyeed maanta marag baa nool ilaahay adduunyadu hatta nooga soo tacsiyeen meesha adduunyadu Erdogan-kii qaraxyada nooga soo tacsiyeenay hatta arintan ma oga maanta adduunyada tacsidiisa waa ku sabri lahayd marka waxaan leeyahay oo ka codsanaya ragga Soomaaliyeed iyo khaasatan dadka isqaba oo romantiga isla jilaya walaalayaalow wixii asturta walaalayaalow hadda isqaad qaadi kartaan 99% Soomaali isma qaad qaadi karto
ragna waa feera yare dumarna waa la socotaan inta miisaanka xajmiga ilaahay u dhaliyay gabdhaheena waa la socotaan marka ninkaasi maanta dhibaato noo geystay caafimaad dar u keenay raggii Soomaaliyeed iyagoo aan al-shabaab qarax u dhigin iyagoo aan Itoobiya diyaarado ku soo weerarin iyagoo maxaa ku raadayay laba gaaro isu dhacay iyo tareen ay saarnaayeen aysan la qalabnin baa maanta rag badan ay cusbitaalada jifaan oo dhaawac leeyahay maxaa keenay gabdhihii oo dhan naqaada waxa kaaga daran muuqaalka meesha ugu dameysa buu wuxuu leeyahay I love you habibi baby I love you baby love you too gabdhihii waxay u qaateen haddii aadan dhabarkaba saarinba inaanan jeclaynba gabar kasta waxay maanta shardi ka dhigtay ayeeya haddii ahayd oo ay xataa ninka 30 sano soo wada noolaayeen oo 10 ciyaal kale ilaahay kala siiyey iqaad intaasaynu wada joognaa maalin dusha ima saarin sida dadka isu qaadayo jacaylku hadduu dhabka yahay jeceshay ha habibi iqaad tuurta isaar haddii kale nagu kala wada meesha qoysas badan inta ku dumi lahaayeen raggii Soomaaliyeed wuxuu qaraar u qaatay in la isqaaqaado gabdhaha in la qaaqaado hadda waxa ka dhacday masiibadaas dhacday maanta marka waxaan leenahay warragga Soomaaliyeed war wixiina gaar ka dhigta war guriyihiina waxa ku jira laakiinse adeerayaal hada in ku tabar leedihiin waxa qaaqaadi kartaan seen abti ninku qaaqaadi kara hadii ilaahay ku siiyay abti naga daadi anoo ma qaaqaadi kara abti naga daa hanada maanta dhabarkaan dumisay abti naga daa dayax saaxiibka oo qaad ka taagnayn oo isaga wixii hees ay ma hees karo waan ka bixi jirnay anagu ma hees karo fanaaniin ma inta san ugu gudbi jirnay ninka fanaan way cod ba ila shaydan si anaga laakiin waxa way waxayagii quraanka loo galiyay marka albaqra hadda ma ku subcina saasaan ugu dabaalan jirnay laakiin maanta iqaaqaad baa timi laasma qaaqaadi karo marka waxaan leenahay dumarka Soomaaliyeed qaaqaadida iyo jacaylku kala labo inuu banaanka lagu la soo istaago oo hadba meel ugu kaxay hadba meel ugu mariyo iyo in lagu kala iyo maxaa ku raadayay in oo wixii dawladda Soomaaliya lagu maagi jiro igu sawirtii jacaylka ka daaye waa ku jecelahay guriga aan wada joogno halkeena aan ku asturnaano saasa dad ku jirta laakiin se banaa jacayl igu sawir meel wada geli karto waxa sidii dawladda Soomaaliyeed oo markay meel dhagax dhigaysaba 20 kaamira la daba ordi jiray hadaa tiraadeen dawladdiina sax noqoto dhibaato way jacaylkana sax noqdo dhibaato way ma geli karo marka maanta dhibaata dhacday rag Soomaaliyeed baa dhaawac u duceeyay ummadda Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leenahay فيديو تيك توك كو أركتان ميدا فيسبوك كو أركتان هدي ولا يلا هنوع دبننا ما أنت هدي إلى هاي نكاغا وكاغا كعيو داوعة ما أنت أرحلة أيسن مارت تيسي كن نقول الحمد لله هده وذا يدب هو كلفين مدة كله تواينا وحوي إقال عقل لا قدر تويه هرتا عدو بالميسان صوفل انت كي لا تاي إستقبل بالإيق إنفيرو انت لاقين مكو قاعد كرا بالإيقا بل استجابية مركا قيسو أنا أو دبعتها نوجستي ما أنت وعوي خير الله كسيو كبرنا كلي نين ألف كسيو وأنت نين دقي يومي كده قريجا هالكاجا كسيدو لكن بالله عليك تيك توك نوكين ما أنت أنيجا إلهي بحي دبرك والله بالله هتبلع عشتة هذا جيفا قري سومالي ما أنت على جت هين ملك قري على جت هين مجرو ولا سعوتها ما تحت عسبتال دق كو قابلة يا مجرو مير والبا كورونا فيروس هكذا لاعي دتك حالته دي بقى يجي بقى عسبتال دي بوحان مركا لما قابل كرو maxaa ku yiraahday dad oo kibir ku soo jabay cidina ma qaabil karto waxaan leeyahay marka intii maanta shirka wax ku noqotay ilaahay ha u boogadhayo intii maxaa ku yiraahday xaasaskooda ka cararay oo guriga laga cayriyay oo markay dhabarka soo dhigan waayeen oo oran waayeen anagu ku qaadayna oo yiri war kuma qaadi karno banaanka loo tuuro bacda loo dhigay gabaray ilaaha ka boqodayga soo cisho inaa ninka qaado iyo inuu ku jecel yahay waa kala labo iqaad iyo jacayl isku xilin soo cisho igu sawir odagaaga dhabarka ha jibin igu sawir gurigaaga ha dumin waxa meel kale ku soo aragtay maxaa ku yiraahday gurigaaga ha ku dhiqin walaalay saasaan ku leeyahay rag badan la sheegay bacda banaanka loo dhigay baa la sheegay inta qaadi waayeen anagu dadku isku dayay oo waxa weey xaaladooda ma dal ogyahay ma nahay dhowrnimo yeere marka saasaan leenahay dhibaatada noocaas dadku ma qaadi karo dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay dadka isqaba oo waxa weeye igu sawir naga daayay
هدا استعشين اسكو قنعسنتين اسقالقادي كرتان ولا يالو غريغينا الهي اسكين بركيو قلكينا هوست كحرتا لكن وحي igu sawir ka daay hada qoftaada qaadi karto niba qoftiisa qaadi karin dhabarka saari karin marka naga daaya billahi alaykum naga daaya saasaan leenahay una soo duceeya dadka Soomaaliyeed oo dhaawaca ragga Soomaaliyeed maanta isbitaalada yaala ha loo duceeyo in ilaahay u boogadhayo in ilaahay uga dhigo nabar xaq daro in ilaahay uga dhigo maanta inuu nabar xaq daro uga dhigo waxa weeye inta taa haysa ilaahay inuu waxa weeye xanuunka ka dulqaado ugu soo duceeya waa qosol ku jabba tan kala dhaha kibir ku jab weeye marka naga daaya billahi alaykum وأنا شينا عليها مشاريع شنو كريبي أو كعد صنية فيديو إنا سيشير جريسو جنال كي هتاكل عصبتاي إنا سبسكرايب تيسارتو برتي الفيسبوك نا فلو إنا صوت راهو كومنت تيجي لايك تا بحلا يجد أنت إنا إيسو بديسو تاني أنت برهان كلام إذا كل مدونه وحين كل عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته